السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan laba erey aan ka iraa masjidka jaamacadda Shingani oo kheyladhaantiisii oo liisi bilaabatay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa kii lagu guulaysto inuu ka dhigo. Waxaan mahad gaaran u soo jeedinayaa dadka isxilqaamay oo runtii ololeynta iyo tabarucaad aruurinta iyo dib u qaabeynta iyo dhismaha masaajidka iyo fikirkoodii waqtigoodii oo u huraya in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaalmariyo fi dunya wal aakhira. awlaadooda ilaahay ugu xifdiyo meel walba ay joogaan. waxaan kalaan rabaa inaan iraa masjidka jaamacadda Shingani maadaama uu dhul yar uu ku fadhiyo, waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in aad iyo aad loogu fikiro oo runtii muxuu ahaay wada tashiyo badan la sameeyo si habkii loo dhisi lahaa, maadaama oo runtii dadkii tiradoodii aad ay u bateen masaajidkana dhul yar uu ku fadhiyo. marka waxaa lama huraana masaajidka hadda dhismihiisii inuu ahaado dhismo oo xoogaa derbi dheer oo xoogaa ugu yaraan 4 dabaq uu ka kooban yahay. dabaqa koowaad ama underground ama dabaqa the first maxaa la dhahaa floor inuu ahaado muxuu ahaay parking, meel baabuurta la dhigto. dabaqa saddexaad iyo afaraadna meel ay dumar ku dugtaan iyo meel lagu tukado, iyo dabaq shanaad haddii la samayn karo la awoodo in meel madaaris caruurta wax lagu baro laga dhigo. haddii kalena meesha dumarka ayaa marna loo isticmaali karaa inay dumar ku dugtaan, marna loo isticmaali karaa in ay duruus caruurta lagu siiyo. marka waa fikrad runtii u baahan 2050 inaan hadda aan ugu fikirno populationka oo kordhaya. Shingani oo runtii dhul ciriiri ay ku jirto, weliga keliya oo loogu bixi kara ay tahay in meelahaas oo tower laga dhiso guryo oo dabaqa dhaadheer ah. si kale baahidaas looguma bixi doono haddii la yiraah. marka waxaa lama huraan ah in haddeer aan ka tashano aan ka fikirno. marka ugu yaraan haddii laga dhigayo dhismahaas yaan laga dhigin dabaq ama 2 dabaq, ha laga dhigo 3 ilaa 4 mid uu ku fadhiya. hanu lagu talagalo waa jaamacadda Shingani, waa jaamacadda keliya lagu dukan jiray waagii hore oo dhan. Shinganina waa ogtihiin wax jaamacad ama wax masaajid oo parking leh ma jiro. waa marka haddeer ayay aad ugu fiicnaan lahayd maadaama oo dhismaheedii qabanqaabadeeda lagu jiro. dhinaca safaaradda Mareykanka soo xiga in entrance oo baakinada ay ka galaan in loo sameeyo, ama dhinaca kale meelna ay ka soo galaan meelna ay ka baxaan, ama meeshaas keliya xataa loogu sameeyo entrance iyo exit. marka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala dhinacaas faalada aan rabay inaan ka sheego inaan nafsadeeda xasuusiyo, idinkana idin xasuusiyo. midda labaad aan rabay inaan idin iraa waxa weeyaan ololahan tabarucaadda. runtii waagii siyaad tabarucaad badan baanu soo samaynay. dhismihii hay-adaha dowladda oo dhan shicibka ayaa dhiseen oo u horan nafsadoodii maalkoodii. haddeertan waa guryaalkii ilaahay ka mid ah oo qof walba interesihiisa ku jiro in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jano oo guri ugu dhiso. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis oo Cuthmaan ibn Cafaan radiyallahu canhu oo laga soo wariyey oo nabiga calayhi salaatu oo ka soo wariyey, wuxuu yiri man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna mithluhu. xadiiskan waxaa soo aruuriyey Bukhari, xataa sharx muslim waa ku jira. marka waa runtii abaalgud aad iyo aad u weyn. jano for sale ayay la mid tahay ninka jaamacadda Shingani hal bulkeed xataa uu ku darsado. waxaan rajeynayaa arrintan in aan loogu daba haraynin Shingani keliya, oo bal ay tahay waajib muqadas ah oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka dhaxayso, oona loo baahan yahay in qayb libaaxa laga qaato. marka insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa tabarucaadkana habka ugu fiican oo ugu weyn waxa weeyaan shaashad keliya in lasoo dhigo telefonood ama waxaa ka sii yara fiican dadka in la liis gareeyo oo albaabada loo jukeeyo oo qof walba lacag la saaro oo dadka reer Shingani waa is wada naqaan oo la yiraahdo qof walba doorkaaga ka soo qaado oo qaybtaana lagu saaray oo ka soo bax. qofkii ka ziyaada bixin karana walaka alxamdu walaka shukr. marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala dhinaca tabarucaadka in dadka oo responsible-ka oo dadka lacaga ka soo aruurinaya inay xil iska saaraan, inay dadka registraarayaan oo ay runtii guryaha albaabada u garaacaan oo qof walba inta la saaray ka soo qaadaan. ninkii ziyaada bixinayana alxamdulillahi rabbil caalamiin waa tii la rabay. marka insha allahu tacaala yaan la kala daba harin. masjidkan ha noqdo insha allahu tacaala masjidka keliya oo parking leh, oo facility fiican leh, oo runtii madrasa leh, oo intaasoo dabaq ka kooban haddii la yiraah. marka insha allahu tacaala wixii tabarucaad ah
dadka aan runtii magaalooyinka kale oo tabarucaadka albaabada loo jugeyn kara ama dadka responsible brothers aysan deganayn waxaan rajaynayaa in shaashada ay lacagta ay kaga soo shubaan dadka oo magaalooyinka sida reer Shingeena u badan oo London iyo Holland iyo meelahaasna dadka responsible brothers inay ay dabagalaan oo lacag ay ka soo aruuriyaan insha Allah taala intaas ayaan ugu baxayaa wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبرعات ونكسن ثواب من بنى مسجدا لله عز وجل. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه البخاري. qaadato fadlan u dir akoonka dahabshiil iyo salaama bank oo haatan shaashada kaaga muuqda jazaakum allah khair hayya ala الصلاة